Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bishii May sanadkii 1963, wiil yar oo ordaya ayaa wuxuu yimid xarun boolis. Kadibna wuxuu ku yidhi booliskii xarunta joogay. Kadib markii uu u tilmaamay buur yar oo ka agdhoweed, buurtaas god ku yaalla waxaa ku jira dad dhiigga ka caba dadka. Cunugan wuxuu ku soo arkay godka, insha Allah oo kula wadaagi doonaa. Sheekadaana waa sheeko yar oo iska gaaban oo ka dhacday waddanka Mexico oo cajiib oo kaa yaabin doonta. Sidaa darteed, la soco muuqaalka ilaa iyo dhammaadka. Aan u galno muuqaalka maanta. sanadkii 1963 waddanka Mexico waxaa ku noolaa laba nin oo lagu magacaabo Cayetano Hernandez iyo Santos Hernandez, waxayna ahaayeen laba nin oo walaalo ah. Labadan walaalaha ah ee ilmaha Hernandez waxay samayn jireen bandhigyo indhasarcaada. Dadka waxay tusi jireen waxyaabo indhasarcaada, sidaa ayayna dhaqaale ku samayn jireen. Muddo ayay sidaa dhaqaale ku samaynayeen oo dhowr magaalo oo waaweyn oo ku yaalla waddanka Mexico ayay bandhigyo ku samayn jireen. Laakiin ugu dambeyntii dadkii waa ay barteen, indhasarcaadkoodana waa ay barteen. Dadkuna marka hore oo ay waxa arkaan ayay xiisaynayaan, laakiin markii wixii ay muddo arkaan oo lagu soo celceliyo waa ay ka xiisa dhacayaan. Sidaa darteed mar walba waxaa sii yaraanayay dadka imaanaya bandhigyadooda, arrinkaasoo keenay in dakhligooda uu hoos u dhaco. Kadibna walaalka weyn Santos ayaa wuxuu keenay fikrad. Fikradduna waxay ahayd inay tagaan tuulo yar, kadibna dadka jooga ay ka waalaan. Qorshahooduna wuxuu ahaa inay 4 tillaabo sameeyaan. Marka hore inay raadiyaan tuulo yar oo dadka ku noolna ay yar yihiin, sidoo kalena aysan ku oolin kiniisad, oo dadka meeshaas jooga aysan diin aaminsanayn oo ay yihiin sanamyo caabud. Markii ay raadiyeenna waxay soo heleen tuulo yar oo lagu magacaabo La Yerba Buena, waxayna doorteen tuuladaas. Qorshahooda labaad wuxuu ahaa inay dadkaas intay u tagaan ay ku yidhaahdeen waxaana la ka soo diray dhanka Alle oo waxaan nahay 2 nebi. Kadibna ay dadka tusaan indhasarcaadyadooda si dadku ay u aaminaan. Qorshahooda saddexaadna wuxuu ahaa inay dadkaas u sheegaan inay daah qaadi doonaan oo ay u soo heli doonaan kunuus ay aaminsanaayeen dadkaas inay ku jiraan buuraha ka agdhow. Magaalada ay tageen ee La Yerba Buena waxay ku taallaa meel buuraleeya oo ku taalla waddanka Mexico. Sidaa darteed dadku waxay aaminsanaayeen khuraafaad hore oo ka yimid xadaaradihii hore ee ka jiri jiray dhulkaas. Waxay aaminsanaayeen in kunuus dahaba ay ku jiraan buuraha oo aan weli la daah qaadin. Intaa kadibna waxay tageen tuuladii. Tuulada waxay ahayd tuulo yar oo ay ku nool yihiin 15 ilaa 20 qoys. Intaa kadib waxay u sheegeen dadka inay yihiin 2 nebi, waxayna tuseen indhasarcaadyadoodii si ay dadka ugu xaqiijiyaan. Dadkiina waa ay aamineen, waxayna bilaabeen dadkii inay wixii ay hayaan ama wax walba oo nimanku ka dalbadaan ay u keenaan. Kadibna nimanka waxay u ballan qaadeen inay kunuusta soo saarayaan, laakiin wax kunuusa oo ay soo saareen ma jirin. Muddo markii nimanka ay joogeen, dadkii waa ay ka shakiyeen, sababtoo ah nimankii wax kunuusa sooma saarayaan, waxna kama dheefayaan. Intaa kadib markii ay dareemeen ilmaha Hernandez in laga shakiyey, waxay go'aansadeen in qorshahoodii afaraad ay ku dhaqaaqaan. Qorshaha afaraadna wuxuu ahaa in dadkaas ay u sheegaan inay ilaahad u yeerayaan. Kadib waxay la xiriireen gabar ay yaqaaneen oo ay hore u yaqaaneen oo mid ka mid a magaalooyinkii ay bandhigyada ku samayn jireen ay ku barteen oo lagu magacaabo Magdalena Solis. Markii ay u timid kadib, waxay tageen god ku yaalla buurihii ka agdhowaa. Kadibna waxay ku qariyeen gabadhi meel. Kadibna waxay ku yidhaahdeen oo ay gabadhi kula heshiiyeen markii ay bus kiciyaan kadib inay soo baxdo. Kadibna dadkii ayay isugu yeereen, dadkii ayay meesha isugu keeneen. Kadibna waxay sameeyeen wax yar oo indhasarcaada. Kadibna meesha dhammaan qaac iyo bus ay ka kiciyeen. Kadibna Magdalena waa ay soo baxday. Markii ay soo baxday oo qaaci degay, waxay arkeen gabadhi oo meesha taagan. Isla markiina waxay ku tiri waxaan ahay Catholic waa ilaahad ay aaminsanaa jireen mid ka mid a xadaaradihii ka jiri jiray Latin America oo lagu magacaabi jiray Maya. Waxayna aaminsanaayeen inay tahay Catholic ilaahad, sidoo kalena ay ilaahyada hooyo u tahay. Markii gabadhi ay soo baxday oo intaa ku tiri, isla markiiba sujuud ay ula dhaceen. Waxayna aamineen isla markiiba inay ilaahad tahay iyagoo hal marna ka shakin. Intaa kadibna waxay bilaabeen in wax walba oo Magdalena ay ka dalbato ay u keenaan iyagoo aaminsan inay ilaahad tahay. Dhowr isbuuc kadib, Magdalena waxaa ku dhacay wax la yaab leh. Si aan u fahanno wixii ku dhacay Magdalena, hal tusaale aan soo qaadanno. Sanadkii 1971 waxaa la sameeyey tijaabo lagu magacaabo Stanford Prison. Tijaabadaasna waxay ahayd in koox ardaya oo saaxiibaa dhismo la keenay, kadibna looga dhigay dhismaha inuu yahay xabsi oo kale.
ardaydiina waxaa loo kala qaybiyey laba kooxood. Kooxna waxaa laga dhigay inay yihiin maxaabiis, kooxna waxaa laga dhigay waardiyaasha xabsiga. kadibna kuwii laga dhigay maxaabiista waxaa la geliyey xabsiga. dhammaantoodna waxaa loo sheegay inay tijaabo tahay. maalmihii ugu horreeyey si caadi ay iskula dhaqmayeen oo waxay ogaayeen ayaga dhammuba inay tahay tijaabo. laakiin dhowr maalin kadib nimankii dhaqankooda waa uu isbedelay, gaar ahaan kuwii waardiyaasha ahaa. waxay dareemeen inay waardiyaal dhaba yihiin, saaxiibadoodna ay yihiin maxaabiis. sidaa darteed waxay bilaabeen in gacanqaadkoodu bato, xanaaqooduna uu bato. mar walba marka ka dambaydana waxay ula dhaqmayeen nimanka sidii inay yihiin maxaabiis dhaba oo kale. tijaabadaasna waxaa lagu ogaaday in qofka haddii uu awood helo ayna jirin wax uu ka cabsanayo oo ka dambeeya. wuxuu isku bedelayaa dugaag, wuxuu isku bedelayaa qof aan wax naxariisa lahayn. Magdalena iyadu iskuma aysan arag inay awood leedahay oo keliya, waxay isku aragtay inay tahay ilaahad dhaba markay dhowr isbuuc joogtay kadib. waxayna bilowday in dadkii ay u dirto waxyaabo aan la aamini karin. marka koowaad dadka waxay ku amri jirtay inay intay dharka dhigtaan ay isku galmoodaan iyagoo isku jeeda iyaga dhanba horteeda. kadibna waa ay samayn jireen, waa ilaahad yar, waxba lagama diidi karo. markii ay waxaa sameeyeen kadib waa ay ka soo gudubtay. kadibna waxay bilowday in dadka ka soo horjeesta ama dadka waxyaabaha ay amrayda diida ay ku amarto kuwa kale inay dilaan, iyadoo ku eedaynayda inay gaaloobeen. kadibna waa ay dili jireen. markii ay dilaan kadib waxay cabi jirtay dhiigga, iyagana waxay amri jirtay inay dhiigga cabaan. marka koowaad waxay ka bilowda laba nin. labada nin markay arkeen Magdalena waxay samaynaydo, waxay aamineen inay naagtu beenley tahay. laakiin naagta maadaama meesha ay ugu awood badan tahay oo aan waxba laga sheegi karin, waxay go'aansadeen inay meesha isaga cararaan. laakiin qorshahooda waxaa ogaaday ilma Hernandez. ilma Hernandezna waxay la socodsiiyeen arrinka Magdalena. Magdalena iyadana islamarkiiba waxay isugu yeertay dadkii tuulada, waxayna tiri godka iskugu keena meeshaas ayaa waxaan ku leenahay dabaaldeg. kadibna waa isku imaadeen. markay isku imaadeen kadib waxay u tilmaantay islamarkiiba labadii nin, waxayna ku tiri labadaa nin waad gaaloobeen, waxay rabaan inay cararaan labada nin qabta. kadibna labadii nin waa ay qabteen, waana ay dileen. markii ay dileen kadibna dhiiggoodii ayay cabtay, iyagana dhiiggi ayay siiday. muddo markii ay sidaa wada kadib Magdalena waxay ku tiri haddii dadka la dilo oo iyagoo dhinta aan dhiiggooda cabno, dhiiggu ma noqonayo dhiig saafiya. sidaa darteed dadka markii aan dhiigga ka shubanayno waa in iyagoo nool wadnaha laga bixiyo marka koowaad, kadibna dhiigga laga shubo. in dadka qurbaan ahaan loo isticmaalo oo ilaahyada loogu dhowaado, sidoo kalena wadnaha laga bixiyo iyagoo nool, waxay ahaa jirta caado ay lahaa jireen xadaaradihii ka jiri jiray Latin America iyo bartamaha America sida Maya, Aztec iyo Inca, gaar ahaan nimankii lagu magacaabi jiray Aztec. qofkii jecel inuu wax badan ka ogaado, horay ayaa marka ka hadalnay Aztec, kor ayuu soo korayaa shaashada, ama marka uu dhammaado muuqaalka ayuu ku soo bixi doonaa insha Allah. xadaaradahaas waxay samayn jireen gaar ahaan Aztec si ilaahyadooda ay u raali geliyaan. waxay u bixi jireen qaraabiin dad nool. marka koowaad waxay dili jireen dadka iyaga ka mida, qaar badan oo iyaga ka mida. kadibna waxay u wareegeen dadka la dagaala, xadaaradaha kale ee la dagaala, dadka ay ku duulaan oo ay soo qabtaan ayay sida ku samayn jireen. qofka isagoo nool ayay meel dhagaxa saari jireen, kadibna waxay ka dilaaci jireen xabadka, kadibna waxay ka soo saari jireen wadnaha, kadibna qofka sidaa ayuu ku dhiman jiray. Magdalena waxay bilowday inay dadka sidaa ku samaydo. markii ay sidaa ku samayday oo wadnaha soo saaraan, kadib wadnaha ayay cuntay, kadibna waxay cabtay dhiigga, kadibna waxay amartay iyaga inay dhiigga cabaan. waxay gaartay xaalad waaliya oo xadka baxa. maalin maalmaha ka mid muddo kadib, cunug yar oo lagu magacaabo Sebastian Guerrero wuxuu deganaa tuulo ka agdhow tuuladii ay joogtay Magdalena ee La Yerba Buena. cunuga yar isagoo maalin maalmaha ka mida socdo oo buuraha dhex socdo ayuu wuxuu maqlay qaylo. sida caadigaana dadku inta badan dadka meesha degan godadka ku yaala buuraha aysan geli jirin, gaar ahaan markii la gaaro habeenka buuraha waa ay ka xabsan jireen. Sebastian markii uu maqlay qaylada wuxuu la yaabay codka buurta ka dhex yeerayo, kadibna wuxuu jeclaystay inuu soo arko qaylada. kadibna waa uu soo socday ilaa uu yimid godka markii uu soo istaagay iradiisana wuxuu arkay wax ka yaabiyey cunuga. wuxuu arkay Magdalena iyo kooxdeeda oo nin intay qabteen wadnaha kala baxay isagoo nool, kadibna dhiiggiisa cabaya. cunugii yaraa isla markiiba waa isku naxay, kadibna waa uu cararay. cararkii uu cararayna wuxuu si toosa u aaday xarunta booliska. xarunta booliska ee ugu dhow waxay u jirtay 16 kilomitir. si toosa ayuuna cunug yar wuxuu u aaday xarunta booliska. markii uu tagay xarunta booliska wuxuu ku yidhi booliskii, buurtaas waxaa ku jira dad dhiigga dadka ka caba, waxaa ku jira dad dhiigga ka dhuuqa dadka. markii hore booliska ma aysa aamin, cunug yar waa ay la yaabeen, kadibna waxay ku yidhaahdeen orad iska tag. cunugii yaraa waa uu ka tegey, laakiin cunugii yaraa maskaxdiisa waxaa ka bixi waayey wixii uu buurta ku soo arkay. kadibna wuxuu ku soo laabtay xarunta booliska maalinkii xigay.
maalinkii xigay waxaa raacay mid ka mid a booliska oo lagu magacaabo Luis Martinez wuxuuna ku yidhi waxaa soo aragtay isoo tus. Labadoodii waa isi soo raaceen kadibna waxay aadeen godka. Maalinkii inta ka dhimanana sida ayuu ku dhammaaday. Maalinkii xigay markii la gaaray waxay arkeen nimankii booliska ahaa in askarigii sidii uu shalay u baxay uusan soo laaban. Kadibna waxay aadeen guriga cunugii yara. Tuuladii cunuga ayay tageen waxayna u tageen qoyskii cunuga. Qoyskii cunugana waxay u sheegeen in cunugooda shalay sidii uu u baxay uusan isagana soo laaban. Booliska markay ogaadeen in cunug yarna lala yahay Luis Martinezna lala yahay waxay dareemeen inay wax jiraan maadaama tiradooda ee yareedna waxay dalbadeen oo ay ka dalbadeen militariga Mexico inay caawiyaan. kadibna waxaa loo soo diray koox ka mid ah militariga. Markii ciidankii militariga ahaa ay u imaadeen waa ay israaceen booliska iyo militariga kadibna waxay aadeen godka. Markii ay ciidankii tageen godka dadkii tuulada ee ku jiray godka iyo ciidankii waxay isdhaafsadeen rasaas. meeshaasna waxaa lagu dilay 14 nin oo ka mid ah dadkii tuulada. sidoo kale waxaa lagu dilay labadii walaalo ee ilma Hernandez. kadibna ciidankii waxay galeen godka. Magdalena meeshii ay ka soo qabteen iyo intii ka hartay dadkii tuulada. markii ay godka baareen waxay ugu tageen lafadad iyo jirdad iyo haraaga dad tiro badan oo ay leeday Magdalena. sidoo kale waxay ugu dhex tageen meydka cunugii yaraa Sebastian iyo meydkii askariga Luis Martinez. kadibna Magdalena iyo intii ka hartay dadkii tuulada waxaa la soo taagay maxkamad. Magdalena intii ay joogtay markii ay timid ilaa markii la soo qabtay waxay ahayd 6 isbuuc oo kaliya. 6daas isbuuc waxay ku dileen 15 qofood. kadib markii la soo taagay maxkamadda Magdalena waxaa lagu xukumay 50 sano oo xabsiya. intii ka soo hartay dadkii tuuladana oo la soo qabtay iyagana waxaa lagu xukumay 30 sano oo xabsiya. shaqadeeni la yaabka ahayd inta ay ku eg tahay. tan iyo kulantada waxaa kaga tagaya amaanaha Allah.